الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. درسنا امتحانا يا نوصو صعودي waxaan isla nimid walilahi alxamdu walminna kitaabu siyaam. kitaabu siyaam waxaan hadli doonaa insha allah halkan kitaabu bayaani axkaami siyaam, soomka axkaamtiisa iyo sheekha noo cadaynaya kitaabka noo sanifay. horta marka ugu horeyso maxaa la yihahda siyaam ama soom maxaa la yihahdaa luqa ahaan waa alimsaak, iscelin waa shay la iska celiyaa. waxaa leeyahay qofkaas uu ka soomay, shaygaas uu ka sooman yahay haddii uu wuxuu iska celiyay uu yahay wax cunitaan ama cabitaan, ama uu yahay socod, ama uu yahay wuxuu iska celinayo oo ka imsaaksanayo hadal. saama can ilkalaam, hadalka ayuu ka aamusay oo ka soomay. saama can ilmashi wasayr, socodkuu ka aamusay oo ka soomay. luqa ahaan waxaa qur-aanka uu soo arooray nadartu lisawmi inii nadartu liraxmaani sawman, ayay maryama dhahday ciise hooyadii, falan ukalima alyawma insiyan. marka waa soomu luqa waay kaas. alimsaak waaye can ilakli washurbi, alimsaak can ilkalaam, alimsaak can ilmashi wasayr. wax un layska celiyo layska manciyaa ayaa soom la yihahda luqatan. laakiin markii la yihahdo sharcan, soomka sharciga soo arooray wuxuu yahay alimsaak can ilakli washurbi, can ilakli washurbi wa can iljimaac jamiica nahaar. nahaarkaasna u ahaado qaabilan lisawm, maalin soom aqbalayo. in cunid iyo cabid iyo jimaac iyo tacamudulqay soomka burina dhan la iska ilaaliyaa. qofka iska ilaalinayana uu yahay qof muslim ah, daahirna ah, oo xayd iyo nifaas aan qabin kaa ayaa soom la yiraahdaa xagga sharciyan. oo soomka sharciga noo sheegayo oo qur-aanka noogula soo dejiyey, kutiba calaykum asiyaam, waa kaas. kan fadaaisha loo sheegayo oo axaadiidta fadaaisha badan u sheegayaan waa kaa. soomkaas ayaa halkan axkaamtiisa insha allah si kookooban sheikha nooga hadlay. wuxuuna nooga bilaabay shuruudda oo soomka leeyahay. shuruudda macnaha shuruudu wujuub, shuruudu sixa ka hadli maya. marka ugu horeysa waxuu ka hadli doonaa shuruudu wujuubi siyaam. wuxuu yihi waa sharaa'idu wujuubi siyaam, soomka wujuubkiisa shuruudihiisa halaathatu ashyaa, waa 3 shay. alislaam waa islaam, qofku inuu muslim yahay. walbuluuq qaangaar, walcaql garasho. intaas haddii laga helo qofka waajib ayuu ku yahay yuliya soomku. waxaa jirto nuso kale oo dhehayso waa 4 ashyaa. nusada 4 ashyaa dhehaydo waxay leedahay alislaam walbuluuq walcaql waxaa lagu tiraa markaas walqudra, qofka inuu soomka awoodo.
إنه صومك أو أوضو والقدرة على الصيام والقدرة على الصيام إنه صومك أو أوضو صاصنا وحيل ذي وأفرتاس الإسلام وإسلام نيمو والبلوغ أنجار والعقل قرشه والقدرة على الصوم إنه صومك أو أوضو قفك إنه قفك صومك أو أوضو وهي qofka waa inuu islaam yahay waa inuu qaangaarsan yahay inuu caqli leeyahay iyo in awood uu leeyahay soomka qudradaas waxay noqonaysaa qudro sharci ah iyo mid xisi ah way noqotaa inuu awood uu leeyahay xisiyan qofka qof duq ah aanan ahayn qof jiran aanan ahayn sidoo kale marka leeyahay sharciyan qofka waa inay daahir ay tahay haddii aysan daahir ahayn xisi ahaan iyo dareen ahaan awood way u leedahay qofka way soomi kartaa laakiin sharciga ayaa xaggiisa ay ka awoodino sharciga u diiday qof aan daahir ahayn qofkaas iska soo qaday doona laakiin haddeertan waajib kuma aha inuu soomo hadda xaaliyan u soomo waajib kuma aha kan qaldaheeda ayaa ku waajibay inuu soo qaldayo qofkaas inuu soo qaldayo ayaa waajib ku noqonaya waxaan dhihi karnaa marka faraa'idu soom shuruud wujuub soom waxaa waaye saddex shay waaye iyadoo alqudratu kusoo darayn waxaan leenahay alislaam walbuluuq iyo walcaqli waxaan ku qabanaynaa hal shardi waxaa laisugu keenaa altakliif alislaamu islaamnimo waaye waltakliifu mashaqayn waaye oo ah walbuluuqu walcaqlu walbuluuqu walcaqlu takliifku waa qofki inuu caqli leeyahay oona qaangaarsan yahay labadaasna halka tiri kan saddexan waxaa ka dhigaynaa walqudratu cala asawm qofka inuu soomka u awoodo sharciyan iyo xisiyanba uu awoodo halkaa waxaan kusoo baxnay soomka shuruudaha uu kugu waajibayo haddii qofka muslim uusan ahayn gaal uu yahay soom kuma waajibin ilahan ka magan galnay gaal asal ah hadduu yahay kuma waajibin laakiin gaal oo riddo ku yimid oo xaadis ah gadaal ka yimid qofka waa laga rabaa soomka markii uu ka baxo riddadaas oo ka tooba keeno in uu soo soomayaa aqaldaas waa laga rabaa laakiin ninkan asaalatan gaal u ahaa haddii uu soo islaama soomkii soo qalday la dhihi maayo kuma waajibsanayn wujuubka طلبي كم واجب سنين وجوب لكن عقابي واجب سنة أخروي هديه سياس كودنتو أصو أصلا قالها سياس كودنتو والله عقابيا وقدر كسو قالي عقابك حق الصومك وليه لكن وجوب الطلب كم واجب أفقار والبلوغ قفل قان قارن عن الجراح كم واجب لكن قفك ولقيسا hadduu awood u leeyahay canugaas waajibku awaliga inuu amraa soomkii ee waajib ku noqonayo laakiin canugaas ay kuma waajibin walcaqlu garaasho hadduu qofka majnuun uu yahay qof waalan uu yahay soom kuma waajibin hadduu awood u lahayn soomku kuma waajibin laakiin bedel ayuu samay doonaa haddii jiro ay tahay gadaal ka imaan doona insha allah taas faahinteeda hadduu jiro laga raysanayo ay tahay oo la rajeynaya in laga raysto waa wax laga rabo fidya oo bixinaya ma jirto uu qaday doonaa hadduu ilaahay caafimaadso haddii jiro aan burigeeda iyo raysigeeda bogsigeeda aan laga rajeynaynin ay tahayna fidya ayaa laga bixinaya maalin kasta madal ayaa laga bixin doonaa haddii qofka tii sharciga ay tahay awood la-aanta tii sharciga ku dhacday ay tahayna way soo qaday doontaa insha allah haddii ilaahay u gaarsiiyo faraa'idu sawm aba arkaanu sawm faraa'idu sawm soomka sheekh wuxuu ka cabira faraa'id waana arkaan faraa'id waa laga cabiraa arkaan waa laga cabiraa wa faraa'idu sawm soomka faraa'ishiisa iyo arkaantiisa 4 ashyaa waa 4 shay anniyatu niyawa qofka waa inuu niyeystaa soomka niyadaasu
من حربة صومك أون صوم يهدي أو يهي مت السنة هدي أو يهي كم واجب التبييت يبريسين كم واجبين إن هبينك نيدا إلى بريض كم واجب وهبينك إنه يستعمل كم واجب ما أنت أسكن يسكر قبل الزوال في المذهب الشافعي قبل الزوال يسكن يسكر هدي أصلا صوم مرين فجر كدب وحصانك بري كرا أو حصانك برنا يؤدو صوم مرين وصوم سمين وحجماعة تعمد القي وحلقنا وحلعبة صوم سمين قبل الزوال وأسكن يسكر أما هدي صومك صوم واجب أو يهي صومك رمضان أما مد كفارة أما من نذر تبييت أي واجبة هبينك أيوني سنة قبل الفجر أيوني سنة مركا النية نية ويرغل الكوبات وفرد الكوبات والإمساك كهيس شو مسكعلين عن الأكل عنيد والشرب عبد أو كهيس غفكة أو اسكعليا وحنا أو سنع عنيد وحنا أو سنع عبين ولو كان قليلا هوا يراداني دوبت وأوجي هاي قصدنا أي تاي وحير حتى ويبرنا إمساك شيخ أكون أبو حسابي حنوش أفر إنه يهي أركانت النية والإمساك عن الأكل والشرب وتعمد القي يمتقى لو قصدا إن لك هيستوريس كعليا والجماع الجماع أصلا لو قصدا رسك عليا تعمد القي والجماع إمساك عن الأكل والشرب أبيت يعونتان إن لسك عليا ولسك لك هيستا والجماع الجماع لسك هيستا جماع أصلا لو قصدي تعمد جماع وتعمد القي يمتقى لو قصدي إن لك هيستا ولسك عليا marka intaas imsaak le waxa suran al-imsaak an al-akli wash-shurbi wal-jimaa' wa ta'ammud al-qay marka imsaak ayaa waxa laga haysanayo afar shay waxa laga haysanayo afar shay waxa laga haysanayo la iska celinayo al-akli wash-shurbi umida wal-jimaa' umida wal-istimnaa wa sheekhan oo sheegin al-istimnaa mani wacasho iyo mani raadin iyo mani iska keenid biyo la iska keenaa gacanta la isaga keenaa xaraam waa in gacanta la isaga keenaa ama zawjadaada gacanta la isaga keenaa zawjada gacanta la isaga keenaa macnaa keenid la isaga keenaa waa xalaal laakiin markii soomku uu burinaa xagga soomka lagu dibaabayo soomka ka burayo xagga soomka lagu dibaabaya marka laga haysto al-akl wash-shurb wal-istimnaa mani wacasho ama mani biyo iska keenid wal-jimaac iyo jimaac oo laga haysto wa ta'ammud al-qay mataga u qasda laga haysto haddii aad wax cuntid ama wax cabtid adigoo u qasdi macnaha aadan ogeyn iska hilmaansanba soomkii kama buri haddaad jimaac samaysid adigoo soomkii hilmaansanba soomkii kama buri هكذا قصدايو تي اسميشي سون كوبري جماعه داس ما قصدايو كفاره كلا ما دون ان شاء الله كتاب كذا نوقف فاين دون ان تعمد القي متقى هذا قصدي او سقس اسي كان اسك كينتيد با سون كوبري يا هو كون قانتي لكن هذا اسي اسكي مادو waxna ay sidib kugu noqon kama burin soomkii waxaan leenahay wuxuu noo sheegay sheekha arkaantii afarta ahayd wuxuu noo sheegay النية iyo wal-imsaak waxaa naga maqan laba rugni waxay tahay qofka saa'imka ah rugnigu as-saa'im qof sooman in la helo qof soomaya soomka samaynayo in la helo waa rugni oo iska imaan arkaanku lahay waxa waaye soomku wuxuu ka kooban yahay iska saaran yahay wuxuu iska saaran yahay qaf samayso oo soomka niyadi iyo imsaak in la isceshaa oo waxyaabaha soo sheegnay afarta shay soo sheegnay iska celiya la iska celiya qofkii iska celin lahay oo inta sameey lahay
iyo macrifatu darafay nahaari maalinta labadee daraf qofka inuu yaqaanaa oo fajirkii ayuu ka bilowdaa nahaarkii fajirkii waa inaad taqaanaa xilliguu soo baxayo xilligu inuu soo baxay in kale qorxadii in dhacday in kale intaas markaa taqaanid ayaa samay kartaa marka soomkii intaasu ka dhalana marka qof yaqaana macrifatu darafayin nahaar haysta oo laba dhinac maalinta ka yaqaan iyo qofka niyo la yimaadaa iyo inuu qofka iska celiyaa waxyaabaha aanu ku banaan soomka burinayo inuu iska celiyaa marka afartaas la helaa ayaa uu taagan yahay soomkii soomaa la hela markaas waayahay waxaa jira marka soomka waxyaaba burinayo sheekha noo soo koobayo 10 shay ka dhiga waladii midka yufdiru bihi saa'im midka sooman uu ku anfurayo oo soomka ka burinayo 10 ashyaa 10 shay waaya ma waaye shay wasala gaaray camdan si kas ah ila joofka gudaha u gaaray wax joofka kala joofka waras madax wixii gudaha gaara ama maskaxdu tagay madaxa maskaxdu galay ama calooshu tagay wixii markaas gudaha gaaray ona maftuux meel maftuux ah manfad maftuuxa ka soo gaarayo aslanatan furan ama مفتوح وياه لك واحد صلاة فرنايم أي هذا لبس ما قال جوكا قارتي ما هي سكال يدور الشباب سيد لو بشر واحد كسو لجارسي مركز سونكاس وبوريا ما وصل إلى الجوف عمدا الجوف والرأس عمدا سكس وجارو ما وصل جارو يا عمد سكسة إلى الجوف هي والرأس وذا هي واضح جوف كاس قوة إحالة هذا إنه واحد اللي يريده بدل كرو الدواء اللي يريده أو معناها قيم كرو عليه حراش اللي يريده من قيم كرو يسوى قيم كرو حتى صرد ما إنه قيم كرو جوف ويا وذا وياي منفذ مفتوح وسوق جارو خلاص صنكوا براسي هذا دون توكلي أيوة استاجين وارد جسي دون تسي تاجين حالة ما لها وحدون التاجر وح ما وريجي كرو راشيك ما وريجي كرو دواء ما وريجي كرو بينكم مقيم كرو بيك يو كاس علي هذا مكلي كرو راشيك كرو مكان راشيك دوسو وريجي كري حتى صنكوا براني مركا وحكوا بركا جرويد هو الحقنة شبيتان في أحد السبيلين لو ضمت كمل وشو أحد السبيل لو ضمت كمل هذه الوشو أو معنا أقول كم بدو بركا أو حين يروح على سمي جري أخافكم دواء هيركس لو وشو جري دواء يركس لو وشو مركا دواء يركس لو وشو صوم كوابري أو صوم كوابري أما حتى حقنة ذا الدورتان كهذا جرتو حيث كل يسكر عسين أيو markii cirbadaas dawada ah oo xididka raacsiin marmud waxay dhaheen maadaama manfad maftuux uusan ka galaynin oo meel hadda la dirqinaya hadda la bajinaya tahay soomkii xididkaas saas kuma burin manfad maftuuxa lama hayo meeshaas sidaas ayay dhaheen inkastoo firinbada isku khilaafeen oo firinbada culamaa macnaha macrufa fiqh mucaasir mucaasirka wuxuu sheegay in qayb ka mid ah in soomka uu burayo maxaa yeelay qofka alghidaa ayay ka helaysaa cunno iyo quud ayay ka helaysaa firinbada quudka marka alghidaa maadaama ay ka helaydo waxaa waaye soomkii uu ku buraa culimada waxay dhaheen manfad maftuux maadaama uusan ka gelaynin soomka ma burin khilaaf ayaa ka taagan laakiin cibaadadaada ilaasho cibaadada daryeel u danay wax khilaaf ku jira iska mar filimada waa isku khilaafay ka dheeraw waxba ha isku durin maalin soom adigoo sooman ha isku durin maalin cad والحقنة في الزبير والقيء عمدا والقيء متجه عمدا سكسة ويما هذا أصلا والوضع وضع يجمع عمدا سكسة في الفرج الله وضعه سنكوكوبر والإزال من الدجين عن مباشرة تابشوت توصى لقى من الدجين سنكوكوبر تابشوت هدو قفك مني أو
mani iska keeno taabasho xaaskiisa oo taabtay oo isaga keeno inuu iska keeno u qasday soonku waa buray ilaa xaayil ha ahaato maca xaayil ha ahaato si dhar ugu sokeeyo ha taabto dhar ugu sokeeyo ha taabto mani inuu iska keeno ugu talagalay wuu ka burtay soonku waa buray ama qofka inuu ugu talagalay inuu mani iska keeno xaaskii wuxuu taabanaya xaaskiisa meesha ku taaban baa ka taabanayo markuu taabanayo waa tab shahwaha uu taabtay macna macaansi uu taabtay mani waa iska timi ma qasasi uu talagalay ma rabin inuu ka timaado laakiin iska timi marka ficili soonku ma burin soonku markaas ma burin laakiin haddii ugu talagalay inuu manidii iska keenaba ka burin sida darteed adigoo sooman waa laga dhaqaaqaa haweenka xaaskaada waa laga dheeraadaa qofka xaliilkaada ah xalaasha ku ah waa laga dhaqaaqaa maxaa yeelay shahwada ayaa kacayso markay kacdana manida inay timaado ayaa ishtahinaysaa marka shahwada maadaama shahwadaada kacayso in aad ka dheeraatid ayaa la rabaa karaahi waayo iyo dheh culamada in la taataabtaa xaaska la taataabta maalin in badan dad way ku dhacday oo su-aalo badana ka imaanayo xaaskiya ku dhacmaan ramadaan qofkaas kafaara ku waajibayso kitaab gadaan oo keeni doono oo 2 bilood soom ah xariir ah 2 bilood soom xariir inuu soomaa marka hal maalin ayaa adkaysa weyday xaaska ka dhaqaaqayso 2 bilood kugu waajibto soom xariir ah marka ka dheeraaw xaaska ha u dhawaanin hana taataaban adigoo sooman guriga masaajidka iska ictikaaf guriga ka fog iska seexo haddaadan isceli karin aad ogtahay waxaa soomka buriyaa waxaan dhahnay xamdi in mani lasaga keenaa inzaal mani can mubaasharatin taabasho haddii taabashada ay tahay jir waxba kaaga sukayn waxba kaaga sukayn inaad ka keento marib laakiin asoo dhar kaaga sukayn ayaa taabat meel dhar kaaga sukayn aad taabat kaas soomku waa buraa kaas والحيض والنفاس والحيض والنفاس حيض والنفاس يقدمها واي ديغو مشا صومك وكبرها والجنون وعلى شواي والردة ردابد واي انت صومك وكبرها قفك هدو عشان لحظة ير دوالنا صومك وكبرها هدو ردة وحير صومك وكبرها أما إغماء يسكرانك وقتو السخرامو ama umiir daboolma haddiise maalinta dhammaanta aysan ahayn qayb kamid a oo soo miiraabay soomkiisa ma burin hadduu maalinta o dhan hurdaayana soomkii ma burin insha allahu soomka waxyaabaha loo suneeyo ayaan gudageli doonaa darsigeena xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.